الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkeena xurunta cuntada caafimaadka. waaniga walaashii shukri aadan boole walaalayaal macaan maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo xanuunka la dhaho TB ama TB-ga Soomaali soo naqaano. cudurkaas dadka markay maqlaan dad badan ayaa u maleeya waa cudur weyn oo cudur waxa weeye oo yar oo hargabka ka yar sida loo dado qofka daawooyinkiisa qaato wax weyn maaha. waxaan rabnaa sida qofka cuntooyinka u fiican inuu iskula tacaali lahaa inaan inta kusoo bandhigaa rabaa. qofka TB qabo waxa u fiican inuu horta special dietkiisa cuntadiisa ay noqoto cunto oo diet oo balance ah maadaama uu yahay qof xanuunsan. marka cunto ma jirto la dhahayo cuntadaas u go'an ha qaato, laakiin cuntooyinka u fiican ee caafimaadkiisa kor u qaadaya ayaa rabaa halkan inaan ka sheego. cuntada ugu fiican waxa u fiican qofka inuu qaato oo TB-ga qabo cuntooyinka aan naqaano cerealka oo lagu gado supermarket-yaasha haddii qofka subaxdii ku quraacdo. cuntada labaad waxa weeye inuu qofka badsado horeyna wax badan ka soo hadlay vegetable-ka iyo fruits-ka isagana ha badsado. waxa kale walaalayaal macaan u fiican cuntada saliida lagu kariyo saliidii fiicnaa olive oil-ka saliid saytuunka ama saliida oo la dhaho naarajinta ama saliida loo maxaa la dhahaa sunflower-ka qofka oo TB-ga qaba iyadana u fiican inuu cuntada ku karsado. waxaan dhihi lahaa ku karso cuntadaada. waxaa kaloo u fiican cuntooyinka caanaha inuu badsado qofkaas caano dhan hadday tahay maxaa la dhahaa caanaha oo mozzarella soo dadka Kenya joogaan la dhaho, hadday tahay caanaha oo maxaa la dhahaa yogurt-ka caanaha caadiga la cabayo waxa caanaha lagu sameeyo dhan ha cuno ayaan kula talin lahaa. waxaa kaloo u fiican qofka TB-ga leh inuu cuno hilibka, doorada, malayga, waxaa kaloo fiican ukunta. waxaasoo dhan u fiican yihiin proteinka cuntada laga helo iyo kuwa oo geedaha proteinka sida hore uga soo hadalnay digirta iyo cuntooyinkaas dhan isagana qofka u fiican tahay. dad waxaa jira oo TB qabo oo ah vegetarian la dhaho oo cunin hilibka iyaga markaas proteinka cuntada ay ku bedelan karaan oo proteinka oo planetka dhinaca geedaha laga helo. waxaan dhihi lahaa cuntadaas ha qaato qofka TB-ga leh insha Allah. walaalayaal macaan waxaa kaloo fiican qofka TB-ga qaba inuu cuno cuntooyinka oo saliida leh saliida fiican saliida xun maaha because jirkiisa dadkaas waxaa arkaysa dadka TB-ga markay ku dhacdo waxaa ku dhaca hilib badan ayaa ugu catoogaa zayd ayuu catoogaa. markaas cuntada dadka kalena isaga isku mid maaha in appetite-kiisa waxaa la rabaa markuu bilaabo weekii uu bilaabo daawooyinkiisa waxaa laga rabaa in laga arko appetite badan daawada ku qaadanayo because qofka TB-ga leh waxaa waaye xakamaha lagu arko waxaa waaye lagu ogaado qufac badan iyo inuu qofkan hilibkii aad u catoobay iyo inuu maxaa la dhahaa appetite ma laha aadna u cateysan yahay qofkan intaas lagu kartaa. waxa kale qofkan la rabaa inuu cuno maalintii 6 jeer inta lagu talagalay isaga 3 oo cuntooyinka waaweyn ah iyo 3 snack mealka inuu cuno lagu talagalay. cuntooyinka marka oo dhahay saliida waxay ka caawinayaan energy ay siinayaan qofkan oo qof daciif ah oo xanuunsan. markaas saliidii xumeed ma hore kasoo saliidii fiineed oo looska saliida laga helo saliida oo la dhahayo sida hore kasoo hadlayadana saliid saytuunka saliid avocado saliida laga helo saliidooyinkaas dhan isaga u fiican yahay hadii la kultina qofkaas ha qaato iyo cuntada proteinka aad ay ugu fiican tahay. waxaa kale u fiican qofka oo maxaa la dhahaa cudurkan TB-ga leh daawooyinkiisa inuu si fiican u qaato daawooyinka kala gooynin markuu daawooyinkiisa dhammaystay soo cunto fiican ku cunaayo haddii kale daawadaas way dilaysaa hadduu kaliya daawada qaato cunto fiican oo balance leh uu ku cunin inuu ku laabto meeshii una soo baaro check-up isku soo sameeyo wax weyn maaha waa cudur aad u yar oo dad kale la daciifa laakiin dadka Soomaalida wax weyn ku tahay. waxaa kaloo kula talin lahaa qofka TB-ga leh inuu sameeyo exercise because markuu qofka exercise ka sameeyo dhidid badan ayaa ka imaanaya gaajo badan aan qabanayso jirkiisana uu fiicnaanaya hilib ay yeelanaya fit ay noqonaya. marka waxaan kula talin lahaa exercise sameey hadda si kasta daciif u tahay TB qofka qabo weeye. waxaa kaloo u fiican qofka TB-ga leh inuu cuntadiisa sida hore caanaha badsado oo nutritionist-ka cuntadiisa balance ay ahaato gaajada badan iska ilaaliyo because qofka markuu dhinaca cuntada ka dhisan yahay energy badan ayuu leeyahay cudurkiina wala dagaaltami kara jiskiisa difaac ayuu helayaa. hadda waxaan sii gudagalaynaa dadka cuntooyinka iska ilaalin lahaa wax iska ilaalin lahaa qofka TB-ga qaba. waxaa kula talin lahaa qofka TB-ga qaba inuu ka fogaado waxaan drugs-ka la dhaho una qaadan drugs waxaas uma fiicna inuu iska ilaaliyo shaaha badan iska ilaaliyo iyo coffee-ga badan ha isla ilaaliyo aan kula talin lahaa.
tubaakada sidoo kale iyo waxa product xitaa tubaakooyinka waxa ku jira xitaa isagana ha iska ilaaliyaan dhihi lahaa cuntooyinka cusbada ku badan tahay iska ilaaliyaan ku dhihi lahaa cuntooyinka oo sida basbaaska iyo waxaas oo kale leh qofka TB qaba iska ilaali ayaan ku dhihi lahaa because ma xamili karo isaga qofkan xanuunsan cuntooyinka toxic ah oo dhan ha iska ilaali oo chemicalka waxa dhihi rabaa dadkan oo drugs ki xas ku jiro dhan ha iska ilaali isaga ma qaadi karo qofkan xanuunsan walaaliya macaan halkaas ayaan ku baxayaa programkeena inagoo mahadsan sheegaray dad kale la sheegaray si dad kale uga faa'iideystaan waa channelkeena xurunta cuntada caafimaadka inagoo mahadsan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh